kulankan uu noociisu ku cusub yahay magaalada Laascaanood ayaa ujeedkiisu ahaa mahadnaq iyo xus taaran dhiirigelinta hal-abuurnimo saxafiga weyn ee Cismaan Cabdinuur Xaashi waxaana kulankan soo qaban qaabiyay naadiga akhriska Ismaaciil Mire oo kaashanaya ururka hal-abuur waxaana ka soo qayb galay inta badan bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood iyo sidoo kale hal-abuuro iyo aqoon-yahano kala duwan oo ka kala yimid qaar ka mid ah magaalooyinka Soomaalidu degto waxa ayna ka soo qayb galayaashu ka sheekeeyeen aqoonta ay leeyihiin abwaan Cismaan Cabdinuur Xaashi waxa ayna sheegeen in abwaanku uu ka mid yahay shakhsiyaadka xilka iska saaray nooleynta afka iyo dhaqanka Soomaaliga oo muddooyinkii dambe god ku sii dhacayay agaasimihii hore raadiyo Laascaanood Faysal Jaamac Aadan oo ka mid ah rugcadayada saxaafadda gobolka Sool ayaa xusay in Cismaan Cabdinuur Xaashi uu yahay shakhsi ay yartahay in Soomaalida laga helo waxaana uu xusay in abwaanku uu magaalada Laascaanood sanadkii 1991 ka hirgeliyay wargeyskii ugu horeeyay ee madax bannaan oo laga hirgeliyo dhulka Soomaalida burburkii kadib kaas oo ahaa wargeyska Nugaal la iskama dhigi karo inuu qofku geesi noqdo waqtiyo badan ayuu Cismaan ka soo maray xilligii raadiyo Muqdisho iyo dhacdooyin badan oo uu ku tacalimiyo dadka uu waxbaro oo aan anigu ka mid ahaa dadkii ugu horeeyay ee uu u qabtay qalinka inay saxaafadda bartaan waliba qaabka qoraalka ayuu Cismaan igu horeeyay Cismaan waxa uu bilaabay joornaalkii ugu horeeyay ee wadanka ka soo baxa markii burburku dhacay wargeyskii Nugaal January 1990 iyadoo ciidamo joornaal ku xidhay ma jirin cid hindisaysay markaa waxaan warbaahineed hala sameeyo sidoo kale hal-abuuro iyo aqoon-yahano ka kala yimid magaalooyinka Hargeysa iyo Burco oo madasha ka hadlay ayaa ku dheeraaday shakhsiyaadka iyo aqoonta ay u leeyihiin saxafi Cismaan Cabdinuur Xaashi Cismaan waxaan soo jeediyay jaamacadda Hargeysa waaxdeeda luqadaha oo Gaariya School of Language la yiraahdo inuu madax ka noqdo marka waxa wasiir ka ahaa wasaaradda waxbarashada nimaan aad saaxiib u nahay Cismaan la casuumay oo aan aad u sheekaysanay Cismaan wuxuu igu yidhi waxaan Cismaan halkana kaaga fiican Laascaanood waa tan caasimadda la isugu yimaadeen jaamacadda Hargeysa waaxda afafka iska qabso mushaar fiican wad ka heli Hargeysa iska tag wuxuu yidhi meere Laascaanood baa xilka weyn ka hayaayo lacag baad ii sheegaysaa imika wax ka weyn baa Laascaanood jooga waan ka maashi Hargeysa waan ka tagnay aniga khaliifku waxaanu tagnay xamar baan isku raacnay waxaan casuumay safiirka Djibouti ee u fadhiya safiirka Soomaaliya u fadhiya Djibouti leeyahay ambassador Aadan Xasan Aadan casuumay waxaan ka sheekaysanay hoggaanka Somali Speaking Band waxaan jeclaystay Somali Speaking Band inuu madax ka noqdo Cismaan Cabdinuur Xaashi maalintaana safaaradda Djibouti waan fadhinaaye xamar wuxuu yidhi khaliifku Laascaanood baa ii baahanoo Somali Speaking Band gudoomiyaheeda waan ku daalaya caawa haddaan sheego inta fursadeeda Cismaan Cabdinuur Xaashi aan u soo bandhigay ee Laascaanood uga lacag badnaan lahaa khayr badnaan lahaa oranaye uga lacag badnaan lahaa ee uu diiday sababtu uu diidayna waxa weeyaan inuu reer Laascaanood la joogo inuu wax baro inuu wacdiyo iyo inuu dhiirigeliyo khaliifku waa dhiirigeliyo weyn oo wuxuu rajadooda dhisaa malaayiin Soomaali oo meel kala duwan joogta waan soo gabagabeynayaa haddaba khaliifka aan ka sheekaynayo oo dhani horta khaliifka aan ka sheekaynayo haddii aanay Aamina Yuusuf jirin maynu maqalneen muhiim maaha inaynu xusno qofku marka uu dhinto laakiin waxa muhiima oo 100 jeer muhiima marka uu inala joogo maanta uu inala farxi karayo dareemi karayo qofku uu yahay inaynu xusno oo niraahno mahadsanid wax wanaagsan baad la tarto noo qabata Gaariya muxuu yidhi aas og way umadeen marka uu qofku dhinto ayay xusaan oo anigu aas qaran dooni maayo guriga aroos qaran baan doonayay wuxuu jeeday wuxuu doonayay inuu garaadkeeda baraarujiyo khaliifku aniga macalinkaygii ugu qiimaha badnaa intii macallin waxay dhigo iyadoo waliba waqtiga uu dhigay waqti kooban ayuu noqday xaqiiq baan idin sheegayaa anigoo quraanka iskaga tagay intaan dhameeyay aan dib ugu noqonay
ayaan cismaan cabdinuur xaashiis baran dabadeetana wuxuu tusay noloshaan meelo kale ka raadinaya inay kitaabka qur-aanka ku jiro caawa waxaan is idaa haddii qof bini aadama la guddoonsiiyo tii ugu qaalisanay isagaanay baray inay tahay ta ugu qaalisan kitaab qur-aana baan usoo hadyeedayey macallinkii gabagabadii kulankan oo hadal uu ka jeediyay abwaan cismaan cabdinuur xaashi ayaa waxa uu ka warbixiyey qayb ka mid ah taariikh nololeedkiisa iyo marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray iyo sidoo kale buugaag kala duwan oo uu qoray kuwaasoo bandhigyo kala duwan looga qabtay magaalooyinka Laascaanood, Burco, Hargeysa iyo Muqdisho. waa dhaqan cusub oo naadiga Ismaaciil Miraakhiska iyo golaha gobolka gobolka Sool ay bilaabeen aniga waa la amaanay anigoo nool alxamdulillaah rabbil caalamiin oo ma naqay dadkayga inaan jeclahay waan idin sheegay su'aalaha badan baa Cabdilaahi Sidiisiyay loo ogtiin macallimada waxay bixiyeen dheeraad badan shaqada qaranka waxaa ka noqday dugsiga sare Sheekh Burco markii dambena Laascaanood dugsiga sare Ismaaciil Miraakhiska loo tiray haatana Muuse Yuusuf markii dambena كلية الإنجنيرية عن كلايا فريستيت كي وقبل الشيء ما كان إذا حد رجل مدرس شغال كاره بس السوشيال ميديا سوشيال ساينس كبرون تاريخ الجغرافيا وأنا فولو مدرس مشان يستيتي لا شغل اللي هو هاي نبي اللي حكي أردن معها وبلي يمدن بيوطانا مشان يتوت هيدي ما أنا أربعة وأقول شيء بوجه لو نتعلي هاي إذا ديالها قالوا إنه واحد هنا يقطع الشيء لمدو الحمد لله مقطع ما يكون شيء قال أربعة لما يوسف لورتري من يوسف على إبراهيم لورتري هو شيخ وين حمدنا ذاتي عباية ولدي يوسف محمد حسن فور عداء لما هو بلاقينا وهاي لنا الشيء وليس هيدا نور وصدح بقول لك شركة تتاوى صوب علي عبد النور حاشي يا سليمان فرحان نيجا بعد مشتري التقارير معهم هو شركة أوبك يا سوبر ماركت المعروف في حكومة حافظ الغراقة يونيك هو أحمد يا طول أحمد عطونو كوم استيت كذا شيء قبله نادي نافر بالنور فرحيان المنطق أو وين يكبر كتيران على السبب نقول يعني فاضل دوام بمرايك كشعورات تجدي عاشا وقبل يجي عند السودان تروى بيوري هذا اللي أنا بكتير تاهورا يدارو التريتشي يدو هو يدارو برامبو تشتي تيجوا وين عالم إنجليز تبرق العالم يدارو السودان ترو وكيف تمشي أنا عاشور دينها يعني بيسهروا دينها سديد اللي تطول يوم المرود تكوش الأولين بعدين هو ما كهذا كده سديد يطول ولا وصولا سديد يطول صاحبنا يا أبي أمانة يا مرتضى ديبا والسوق هيني كلهم جاي على هاي ديانك إلى ما نقوم هذا وعلى دين بلغة هنا الجوس دين أفضل يدن قارة أنا وري Cismaan Cabdinuur Xaashi waxa uu ka mid yahay dadka loogu jecel yahay guud ahaan gobolka Sool waxaana uu macallin ka soo noqday qaar ka mid ah iskuulada ugu caansan Laascaanood iyo jaamacadaheeda waxaana muddooyinkii u dambeeyay juhdi badan geliyay dhanka qoraalka waxaana uu soo saaray buugaag kala duwan oo ka hadlayay dhaqanka iyo afka Soomaaliga xafladan loo qabtay ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee shakhsi reer Laascaanood loo qabto taas oo lagu xusayo waxqabadka iyo doorka uu bulshada ku dhexleeyahay waxaana soo qaban qaabiyay ardayda uu macallinka u soo noqday iyo ururo ka shaqeeya arrimaha qoraalka iyo suugaanta Cabdi Fataax Maxamed Cabdi Television ka Laascaanood